Waa dhul oomana ah oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3,000 oo qoys. Baahida ugu weyn ee halkan ka jirta waa biyaha. Dadkuna waxay safaf dhaadheer ugu jiraan helidda biyo ay dhuunta ku qooyaan. Qubays iyo dhar dhaqasho warkooda ma jiro, waysadana waa booreysi, waxaana biyaha ay ku jiraan bacdan aad aragto. Qoyska 7 maalmood waxaa loo oggol yahay 2 jiirigaan oo 20 layaal ah, waxaana lagu diiwaan geliyaa buug. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo kaawe ku haya garoonka diyaaradaha ee Jowhar ayaa ka sheekeynaya marxaladda biyo la'aaneed ee deegaankan. guri la'aan waana haysa haddaan minikeyga ku kiixa ko dumaya ahaan ku jiray dhibaatadaas aan hayso oo haddaan biyahan waxa iigu dambeysay jimcadaan oo shalay ahayd jimcadeedii iigu dambeysay naas nolol maata dhimasho ma aho aniga dhibaatadaas waana haysay ceel ma haysani bilo hore haddana wal xala aan siyaa nool ceel aan la qodaa waa babaytagni wax noo soo socdan uma jeegni waxaan niga codsaynay haddii waa kaas nolol noo rabtiin waxaan niga codsaynay ana عيل نو قدين أنا أرسخ نسيسي أنا بي نسيسي أنا بيت نسيسي إلهي نسيكر أنا رسول أنا نسيكر مو صدر ريالة إلهي نصدر ريالي كر إذا كان على أنيسو ديبو على أنيسو ديبو إلهي أنيسو ديبو إذا كان واحد من السيكرتين بيا فرياني بيا كل طلبه أجوجا بيرجي لقنا نسيب كذا بابو بعد فاسة ودستي أنا نهاية لكن سؤال كتولة تحت أجراي قوسكي وعسقاتي لا بجيرجان قوسكي لا بجيرجان دت وخدت خدايا دت خدايا خدان دتك خدو ليس الوقراء تمن طول أخدو لحت طول أخدو تمن يكون طول أخدو ليس الوقت دتك خدايا هذا المال كلا بدله بس بدلوه المرة خدايا دتك ما أنت خدو ما أنت كلا كلا له المرنا ما أنت كي أوه مري هذا المال كلا كلايا دتك خدو تكوي قلايا دتك أو قاطو كلا مرايا دتك خديا سهر مرايا Mucaawiye Gaduudow oo ah gudoomiyaha deegaankan ayaa qudhiisa sharaxaya amuurta deegaankan. dadka meeshan degan aad iyo aad ay u dhibaataysan yihiin waa dad barakac ah qoysaskoodana waxay ka kooban yihiin 2,673 qoys ayaa degan ceel uma qodna Jowhar biyo kama keeni karaan dhibaatada haysato mid yar ma aha hadda meehan aan joogno dad ayaa ma aragti kolbo aanoo soo hibooday hal booyad ayaana la keenaa booyadaas oo 2 qayb loogu qaybiyo tuuladii oo 200 qoys ayaa maalintii biyo la siiyaa 200 qoys kadibna waxa ay wareegta waay qoyskii ستمان أيوة موجانا قوس كل شيء بريء لب جيرجان ستمان وختمة مركزنا نور الماءها وحن كعسينا يدولة الدحاء ولا لها مسلمين تأه هيرشوالة إن ذات كان إن أركان لا سمايو عال أما أنت اللي جاريني دي دامين لا سمايو guryaha deegaankan waa jiingado, jawiga waa kulayl, dhulku waa oomane, dadkuna waa dan yar duruufta kala duwan la nool. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa, Universal TV, magaalada Jowhar.